بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka hadlaynaa arrinta soo socota oo ciidanka asluubta ku saabsan. waxaan mar labaad ku celinayaa dadka fasaxa ku maqan, dadka erigta ku maqan oon horey uga hadlay inay soo galaan, in ay soo galaan ama dibad ha noqoto ama gudaha noqoto ama ereg gudaha oo dad la siiyey ha noqoto. waa dhammaaday waktigii aan siinay waa dhammaaday. anoo tixgelinaya kuna hadlaaya afki ciidanka asluubta, dadkaas waxaan ugu darnay 5 maalmood oo kale. ninkii aan 5 maalmood ku imaanin ciidanka asluubta ka mid ma aha, uuna ku soo talagelin meesha uu joogo un horey oga dhaqaaqo. taas waa mid. dadka aan u yeerayna qof noogu imaan karo oo aan ka ogolaanayno ayadana ma jirto. ninkii ereg asluubta ah haystow mishaarkiisa ha gafinin, adna kaa yeeli mayna haddaad noogu imaado. shaqadiisii u soo dir, ha gafinin. waa nin soomaaliya, shaqadiisa ha gaftiin. waan haystaa iyo waa hala ii daayana ma kaa ogolaanayno, ha iigu imaanin. taas waa qodob kale. qodob kale aan u gudbaya. qodobka kale muxuu yihi? dalka waxaa ka badatay oo laga dhexelay ciidamada sidii dadka shacabka oo kale, dad xashiishka caba, daroogaysta ah, meelaha ku dhacdhacay. noocaasiga askari lagama rabo. ciddii askarinimo dambe usii haysaana qarankuu qayaanay. waxaan hoggaanada ku amraynaa, sarreeyayaasha hoggaanada ciidanka asluubta, saraakiisha waxaan ku amrayaa fadhiyada sida ugu fudud dadka ayaga adinka oo tixgelinay sababta nooca ciidan laga raba, adinkoo tixgelinay yah aanan qarankoodii aadan qayaanaynin. kuwaas ayaga aana si degdega in la igu soo gaarsiiye 2 bari gudaheeda, iyaguna ciidanka ka mid ma ahaanayaan haddii ilaahay yidhaah. kaasna waa qodob kale oo waxaan oga hadlay daroogeystaan oga hadlay. qodob saddexaada ii weheliyey. saraakiisha sarreeyayaasha waxaan amraynaa ayaga ayaa laga helaa nooca hadda aan soo wado, ama saraakiisha nooc kastaba ha noqdeen, sarreeyayaasha walaa nooc kastaba ha noqdeen. waxaa la qortay dad nin kasta wiil yaroo uu dhalay ama gabar yaroo uu dhalay ayuu ciidanka ugu darsaday. saraakiisha ku darsay shaqada keen, haddana waa amar. haddaadan keenin waa ruqso, iyadana waa rus. askari waa kii shaqeeyay. in midna uu shaqeeyay midna uu guriga jiifo, isku mishaar ay qaataan, waa cadaalad darrana dooni mayno. taasna waa midaas. taasna waxaan ku amray sarreeyaasha iyo madaxda hoggaanada iyo madaxda fadhiyada, haddayna arrintaa fulinin saraakiiley iyo fadhiyada nimanka xukumo iyo hoggaanada, haddaadan arrintaa fulin adinkay inku soo noqonaysaa, tilaabaa la inka qaadaya. ma aha inaan qaranka qayaano, ma aha inaan waddanka qayaano. waxay nagula ogaa waa inaan qabanaa oo nadiif ah. sharcigana waa inaan ilaalinaa. sharci ma aha askari xashiishaysta ah inaan meesha ku hayno oon mishaar siino. taasna dembiya adduun iyo aakharaba nooga imaanaya. ujeedkayga waa intaan. wixii kaloo intaa ka dheeri ah. wabilaahi towfiiq. anigu waxaan ogahay ma aha wax berrita anigii ugu soo noqonaya maaha.
sababta aan oga hadlay adeecadana waa taas waxayga inaan bannaan ka dhigto berito maadaa saas yeelay aan la idhihin taliyaa saas yeelay aan la idhihin waayo warkayga waana mahadsantihiin